kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena kaha wararka aan ku soo gudbino wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada waxaa qayb ka noqon doona xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay magacyada xubnaha guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dhawaan midowga musharaxiinta u gudbiyeen liiska oo markaas ku dhawaad 67 qofood oo ay soo bandhigtay xukuumadda ayaan soo gudbin doonaa daawadayaal soo kale waxaa daawan doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa barnaamijka soo dhigay xiriir xumada ka dhaxaysa Soomaaliya dalka Djibouti iyo Kenya waxyaabaha ka jira arinta ku saabsan kiiska badda in qadar ay dhaxdhaxaad ka gashay isla markaana saami badan ay ku leedahay waan soo gudbin doonaa Axmed Madoobe ayaa waxa uu xafiiska wasaar roob u gudbiyay xubnaha Jubbaland ee guddiga doorashooyinka ku matalaya soo kale waxaa daawan doontaan midowga musharaxiinta mucaaradka ah oo kulan casharaf xal ku yeeshay Muqdisho waxay ka wada hadleen waad maqli doontaan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warar kale gobolka geeska fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saaro gambada kana furo una sheegay saaxiibada marka soo dhawaan idinka markaas like kuma taganayo inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilowno guddiga xukuumadda ee wasaar Maxamed Xuseen Rooble u saaray xalinta khilaafka doorashada guddiga khilaafaadka ayaa shaaciyay tirada xubnaha cabashada laga keenay ay u soo gudbeen dhinacyada kala duwan afhayeenka guddiga oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda soo gaartay ilaa 67 xubnood oo cabasho laga qabo kana kala tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka midowga musharaxiinta ayaa u gudbiyay wasaar Rooble 61 xubnood oo ka tirsan guddiga waas oo si sharci darro ah loogu daray halka guddoomiyaha aqalka sare uu gudbiyay 4 xubnood oo cabasho ka ah waxaa soo kale 2 xubnood u gudbiyay guddiga afhayeenka guddiga ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay inay soo gaareen ilaa 67 xubnood oo cabasho laga qabo kana kala tirsan guddida doorashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka midowga musharaxiinta ayaa wasaar Rooble u gudbiyay 61 xubnood oo ka tirsan guddiga waas oo si sharci darro ah loogu daray halka guddoomiyaha aqalka sare oo u gudbiyay 4 xubnood oo cabasho ka qabo waxaa soo kale 2 xubnood gudbiyay guddoonka golaha shacabka xubnaha cabashada laga keenay ayaa iskugu jira shaqaale ka tirsan hay'adaha dowladda ciidamada kala duwan iyo taageerayaasha madaxweynihii xilkiisa dhamaaday iyo taageerayaasha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo ka difaacaya baraha bulshada Rooble ayaana faray guddiga hawshan ku jira in laga saaro xubnaha ka tirsan ciidamada qaranka iyo shaqaalaha hay'adaha dowladda waxaana hadda socota hawsha uu guddiga ku kala saarayo xubnahaasi guddiga kala saarista xubnaha guddida doorashooyinka waxaa guddoomiye u ah wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab oo si weyn ugu dhow wasaar Maxamed Xuseen Rooble waxaana uu ku jira wasiirada ka tirsan xukuumadda wasaar Maxamed Xuseen Rooble qaybaha hore ayaa daawanaysan dhinaca kale intaan ka bixin arrimaha ku saabsan guddida doorashooyinka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xafiiska wasaaraha Soomaaliya waxa uu u soo gudbiyay xubnaha maamulka Jubbaland ugu mid noqonaya guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka Madoobe ayaa wareegta uu ku magacaabay 12 qof waxa uu guddida doorashada ku kala matali doona Jubbaland waas uu sheegay in magacaabistooda uu isqaday tashiyo markaas uu ismay madaxweyne ku-xigeenka iyo fulinta heshiiskii 17 September ee arrimaha doorashooyinka xalkoodu ahaa guddiga uu wasaar Rooble u xisaaray inay soo baaraan liiska xubnaha ku jira guddida doorashooyinka ee horey loo soo magacaabay isla markaana ay cabashada ka soo gudbiyeen musharaxiinta mucaaradka ayaa markaas shaaciyay liiska 67 xubnood oo la doonayay in laga bedelo Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeyay ee qaad tallaabo lagu fulinayo heshiiska maamulka hor lagu kala saxiixday Muqdisho kaas oo meesha ka saaraya madowgii ragaadiyay hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya qeybihii hore ayaa daawanaysaan fadlan hilmaamina inaad subscribe ku saarataan gambada kana furataan oo sharageysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumantiga laagana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin la socoshada had iyo jeer wararka halkan aan kusoo gudbino markaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa warbaahinta dowladda wareysi dhinacyo badan taabanaya kaas oo kaga hadlayay xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka khilaafka ka dhaxeeya Kenya Djibouti dowladda iyo arrinta markaas ku saabsan dacwadda badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya dowladda Kenya ugu horreyn wasiirka oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka ayaa wuxuu sheegay in wixii dhacay oo dhanba
hadda la isku cafiyey islamarkaana la gaaray heshiis la isku halayn karo isagoo tusaale soo qaatay xafiiskii ay xafladii saxiixayaasha ay ku dalbadeen gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif iyo madaxweyne Farmaajo in ay iscafiyaan isagoo ka hadlaya dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka dalka. waxa uu sheegay in loo markaasi dhigi doono 3 wajo oo kala ay markaasi bixisay dowladda, mid ka soo horeysa mid markaasi ku xoreynaysa mid ka soo xaranaysa musharaxiinta iyo qayb ay ku habayso beesha caalamka. xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti, wasiirka ayaa wax lagu weydiiyey badmadowga soo kala xagalay xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti, wuxuuna sheegay in Djibouti ay muhiim u tahay Soomaaliya balse ay jirto cabasho markaas laga kala tirsanayo. waxa uu sheegay in badmadow ay soo kala xagashay laba dhinac, taas oo sababtay arrintii ku saabsaneyd guddigii loo xilsaaray in ay soo baaraan arrintii ku saabsaneyd Madaxweynaha ee Kenya kala dhexeysay Soomaaliya isla markaas ka taagneyd fargelinta ay ku isay, taas oo Djibouti ay ka xeel daacisay Soomaaliya isla markaana ay dhinaceeda ay noqotay dalka Soomaaliya ay sida weyn xiriir xumada kala dhexeysay ee Kenya. isla wararkaasi intaan ka bixin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya mar wax lagu weydiiyey kaalinta koowaad ama kaalinta dowladda Qatar ee soo celinta xiriirka labada dal, waxaa jira buu yiri warar sheegay in Qatar ay abaabulayso fursad la xiriirta in Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagayaan kheyraadka ku jira labada wadan. kheyraadka markaas ku jira badal isku haysto ayaa sheegay in Soomaaliya ay sugayso oo kaliya go'aanka maxkamadda ICJ oo wax gorgortan ah uusan ka furnaan arrinta badda, isagoo qiray inuu jiro dadaal la xiriira arrintaas oo Qatar ay wado. hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay warar ku saabsan in dowladda Qatar ay markaas saami qaybsi ay ku yeelanayso xiisadda ka dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ee badda, taas oo markaas ay dhaxaad ay ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyay ay u kala dirtay dhambaalo madaxda dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan aqbalay in xiriirka labada dal la soo celiyo, hase yeeshee haatan meeshiisa uu ka taagan yahay madmadowgii ugu cusaan uu weli jiro. qaybihii gabagabada ayaan kusii dhownahay saaxiibayaal, hilmaaminaa subscribe ka saartaan gambaleekana furtaan una sheekaysan saaxiibadii meel kasta ay joogaan, idinkoo markaas kumantiga laagina inoo reebaya aad baad ugu mahadsantihiin. halkaana madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta cutubyo ka tirsan ciidanka maamulka Puntland tababar ugu soo xiray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, halkaas oo ciidamada muddooyinka u dambeeyay tababar ku qaadanayeen, isaguna digniin u diray shakhsiyaadka darawalada ka ah gawaarida noocyada kala duwan oo dhawaan duleedka magaalada Garowe shir ku galay fanaanka caanka ah ee Soomaalida si weyn u dhageysto Sharma Boy, waxaana uu arrintaas ku tilmaamay mid ay tahay darawaliinta kuwa aan si fiican u aqoon xeynta gawaarida noocyada kala duwan. wararka gobolkan waxaa ugu waaweyn rag hubeysan ayaa dhaawac u geystay taliyihii hore ee ciidamada dhulka ee waddanka Uganda General Katuma Wamala, iyadoona halkaas lagu dilay gabar uu dhalay generaalka iyo darawalkiisii. General Katuma Wamala oo hadda ah wasiirka gaadiidka ayaa ahaan jiray taliyihii hore ee ciidamada dhulka ee Uganda, wuxuuna kaalin weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Wasiir Carab Ciise oo ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo in ka badan la kulmay wasiirkaasi ayaa waxa uu sheegay in General Katuma Wamala uu ahaa taliyihii hogaaminayay ciidamada lugta ee Uganda ee ururka Al-Shabaab ka xoreeyay magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in marar badan oo booqasho ku tegay Soomaaliya wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay ciidankii sida xoogga ula wareegay oo la dagaalamay Al-Shabaab Muqdisho in xoreeyay iyo meelo badan. wuxuuna ahaa nin aad iyo aad u adag cilmiga ciidamadana aad u yaqaan ee soo bartay ayuu yiri Hussein Carab Ciise oo ahaa markaasi oo hore u soo noqday wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya. gudahaan daawadayaal waa naga intaa wararka weyn Soomaaliya caalamka, waad kala socotaan janaalkeena ka ah wararka. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saaro gambaleekana fur una sheegaray saaxiibada meel kasta ay joogaan, idinkoo markaas kumantiga laagina inoo reebaya aad baad ugu mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada. haddii jeer wararka halkaan aan kusoo gudbino fadlan nagu dhiirigelinaya in aan soo gudbino muuqaallo qurux badan oo ku saabsan dibudhiska dalka iyo warbixinada guud ee Soomaaliya caalamka.